taliyaha ciidamada lugta oo dhawaan gaaray gobolka Gado ayaa waxa uu ballan qaaday in ciidamada halkaasi ku sugan ay heli doonaan agabka ciidan iyo xuquuqda ay u baahan yihiin. ciidamadani oo dhawaan laga qaaday qaybo kamid ah magaalada Muqdisho ayaa la gaarsiiyay qaybo kamid ah gobolka Gado iyadoona arrinkaasi ay dawladda dhexe ilaa iyo hadda faahfaahin ka bixin sababaha keenay in ciidamo laga daabulo Muqdisho isla markaasna gobolka Gado la geeyo iyadoona ciidamadani aysan wax tilaabo ah u qaadin dagaalka ka dhanka Al-Shabaab ee ku sugan gobolkaasi oo ay ciidamadu kaga hortagaan weerarada Al-Shabaab halkaasi ay ka geysanayaan iyo in ay weeraraan deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolka Gado. Jubbaland oo hore uga hadashay ciidamadan lagu daabulay gobolka Gado ayaa walaac xooggan ka muujisay iyadoona sheegay in arrinkani uu iska horkeenayo maamulka Jubbaland iyo shacabka gobolka Gado taasi oo ay sheegeen in waxyeelo dhanka nolosha ah ay ka dhalan karto haddii ciidamadaasi aan jawaab laga bixin sababaha loo geeyo gobolka Gado. aad bay farxad gelinaysaa inaan maanta hortiin soo istaago oo aynu si fiican isku xog wareysano aan arko waxa ku sugan tihiin iyadoo aan awal bahayay warbixinadiina joogtada ah iyo qaabka aad tihiin iyo sida aad maartay u nooshiin inta baan ogaa. haddana farxad waxay ii samaynaysaa inaan soo dul istaago marxaladda ku jirta. xaqiiqdii ammaantiin waa iga badatay ammaantuna iskama imaan. intee ciidan baa jira, intee urur baa jirta, intee guutaa jirta. Soomaalidu kulli waa iswada xanugta. qof waliba iyo ciidan walba oo meel jooga waxa uu yahay waa la yaqaanaa. ammaantiina marka waxay intaa noogu badan tahay oo noogu soo gaaraysaa ama taliyaashiinu aan soo gaarsiiyeen ama riboodada saan ku helayna aan soo gaarsiiyeen ama marka operation qaadaysaan aan la soconno inaad tihiin geesiyaal isku filan oo cadowgu uusan hunguriyeyn karin kalsoonina isku qaba. taa marka magaca waxaad kala siman tihiin oo haddaad fiicnaateen oo aad geesiyaashii qaranka tihiin oo dalkian aan hadda joogno aan nabadda ku mareyno dadkii soo horseeday in nabad lagu joogo aad tihiin ammaanta ciidanka xoogga dalka oo dhan bay ka dhaxaysa. haddii aad xumaan lahaydeenna waxaa ku xumaatay ciidanka xoogga dalka oo dhan bay ka dhaxayn lahayd. marka halkii qof oo ciidanka xoogga dalka ah meesha uu joogo waxa uu yahay wax la wadaagaya la oran mayo waa hebel, la oran mayo waa reer hebel. yuu ahaa waa ciidan military xeeg tirsan ururka 49aad muxuu sameeyey waxa uu sameeyey waa military. shacabka markaa sameeyay ku oran mayo waa hebel. yuu ahaa wixii waxa sameeyey askari military waa military-guna waa la qaybsatay. marka haddaa wanaagsan tahay walaagaas waa wada gaari yaa waxaan sameeyey ciidankaas sameeyey. waxaan marka rabaa inaad howlaha aad haysaan oo ciidannimada ah oo dal jacaylka ah oo geesinimada ku jirto oo halkaa intaad ka lugaysaan 70 kilomitir aad ugu tagaysaan cadowga oo waxaan la ilaawi karin taariikhduna xusayso. anigoo og inay baahiyo badan jiraan haddana aan rajaynayo maantana aanu saraakiishays aragnay ciidanka intiisa kalena aan hortiinna ka sheegi doono allaha awoodda leh hadduu idmo inaad heli doontaan agabka idinka maqan ee aad ku howlgelaysaan haddii allah